waxa weeye bal kuwa ayaga la shaqeynayo xoog u ahay oo kala shaqeynaya amniga maalin walba qofka wax ogba in la dilo oo la qafaalo la afduubo meydkiisa qaarna la helayo meel badan laga soo qaaday sida gabarta leeyahay Muumino Cabdiraxmaan Hayow ninka la yiraahdo Jaajuun muxuu ahaa nin kale asagana la ugu sheegay ilaa yado Sharma Arke Ismaaciil marka waxa soo dhan waxa la helay meydadkoodii oo meel la yaabo yaala iyo sida loo afduubo runtii aan la yaabana ilaa hadan iyo kuwa badan wali aan meydkooda la arag oo meel ay jaani cirib dhigana leeyahay marka shaqada noocaas u taala waa shaqo aan wadankan laga aqoonin dawladan ka horeeyana wali aan maaragtay aysan soo marin oo wax lala fajaa waa wax umada Soomaaliyeed dhigihada ku cusub in dadka Soomaaliyeed cidii wax garata oo masiirka umada dadkii lagu aaminay mustaqbalka soo koray masaraakiisha ahaadano ama siyaasiyiinta ahaadano ama ha ahaadan aqoonyahanka ama ha ahaadan qof kasta wadanka saameyn ku leh oo maaragtay horumarka bulshada qayb ka noqon karta in la dilo oo kuwa hadda noolna Ilaahay dartiis ku nool yihiin iyo qudrad Rabbi ku nool yihiin kuwa kale taan la daba taagan yahay ay saas u shaqeeyaan waa wax la yaabo madaxdii dalka u haysay majaraha oo horumarka iyo dawladnimada laga sugaayay umada Soomaaliyeed mustaqbalka inay gaarsiiyaan meel wanaagsan looga fadhiyo inay dadkii laayaan ay dilaan qof habeen la afduubo waa wax la yaabo waxaan hore loo arag dawladnimada iyo dalkaana ku cusub oo ay ugu suneeyeen waxaan ku mal jirnay hay'adaha argagixisada waxaas inay sameeyaan marka waxaad moodaa yaani inay ka shaqeynayaan ku wadanka laga qabanayo nabadiidka loo baxsho dhibaatada wadi waxay sameeyaan wax ka daran ka shaqeynayaan marka arintaas waa arin umada Soomaaliyeed uga tacsiyayna waxaan si qaas rabaa inaan isdul taago gabadha leedahay Igraan Tahliil Faarax waa ka xunnahay عائلتيدنا وتعسيهنا دولة dadka u shaqeeyaan qabiil ma aha waad ogtiin Soomaaliya dadka dawladda jooga hay'adaha dawladda ka shaqeeyaa qabiil ma aha waa Soomaali gobol kasta ka yimideen deegaan kasta ka yimideen waa dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo dawladnimo inay ka shaqeeyaan meesha u jooga marka dadkaas hadii indhaha laga baxsho maalmo qofku wax ogba leeyahay kan aan birayno si maaragtay halista aan dalka ku soo wadno aan u gudbin هذا وحان مغلق قبل اللي يراهدو مؤمن عبد الرحمن حايو وحي قدمتي وحي هان سرع وجود بسي نين مرشحين ميدوغ مرشحين كميدا او ان الديل لا ربay لو هشيي دلكيس لكن ولي ان لا فولين ninkaasay xogta u gudbisaa la yiri saasay u dhimatay marka dadka saas u fikira oo umada dhamo dil ugu qoran yahay wax ay ka fikir doon waxay ugu qoran yihiin dil fikirkaas marka waa naqaan meeshu ka yimid hadii meesha laga dirir lahay ayadi oo yaalo ayada dalkii ayada laga xukumaba hadii bay xukumaan marka wax la dhortay meesha ma yaalin wajada hadii ba fikirkaas ninkii qabay wax asiga ka furdo qofka uu dil ugu qoran yahay ay dalka xukuumad madaxtooyada ku jiraan oo ay ku jiraan hay'adda nabad sugidda ayagu ay maamulayaan ay u taliyaan marka dawladnimadii marka soo wax la yaama soo adduunka ka geelimayno baalmadow soo nolo aqoon Soomaaliya wada dhamo argagixisa arintaas waxay u baahan tahay arin waxa weeye dadaal wadareed u baahan tahay aragti meel ka soo wada jeeday u baahan tahay waxa kale oo la yaab leh oo wax la yaabo umada Soomaaliyeed rabaa inaan xasuusiyo ninka sidaas u fikira oo xukunkiisa oo maaragtay ku taagan yahay qofka ka fikir duwan in la dilo qoodin iyo xiradiin haddana nooga rabo baarlamaanka soo socda cod ka rabo haddana inuu ku soo laabto dilka sii wado taas ayadan waxay tahay la yaab dadka marka dad indhala oo dhagala oo aqli la oo fikiray inaan nahay Soomaali ay saas markaas ay wada gaartay waxa la yaabo waa marka ninkaasi dalka dhibaatada uu geystay wax u maleeyay inay 10 sano iyo 15 sano iyo 20 sano in la xalin doono u maleeyay waxyaaba uu ka tagay sunta uu ninkaas ka tagayo saameyn badan ee dadka ku yaala iyo dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay intaan uu nagu faafin hadeerna laga hortago
oo si farsamaysan looga hortago oo dadka Soomaaliyeed shuxuurtooda ha muujiyeen fartaha lagu fiiqo dhibaatadaas haddaan farta lagu fiiqin way nagu socon qola gaara ku gaar maahan qofka ayagu ay rabaan oo fikirkooda diidana wax uu qorayaan sida hadda ma uu qorayaan dil afduuba uu qorayaan ciidan waa haystaan qoryo waa haystaan dadkana waa ka adag yihiin mid ugu adag yihiin waxa kale lagu celi kara waxa waaye in wadar dadaal wadareed waa marka aanu arintaas Soomaali u soo jeedina farmaajo iyo tiimka asaga la shaqeeyo oo ay kameen hay'adda sugida iyo madaxdeeda dadka Soomaaliyeed intaysan dhamayn oo aysan indhaha ka ridin oo aysan balaag liiskina wada gelin umada Soomaaliyeed hadda kuma jirto balaag liisk si aysan inay wada geliyaan ay rabaan haddaysan meeshaas intaysan gaarsin ayagaan iska qaban shirkeygan jaraa'id waxaan ugu talagalay ama warkeygan inaan ku cabiro mushkilooyin badan oo hadda bariyahan dambe ka jira muxuu ahay beledka ama magaalada Muqdisho qaasatan caasimada waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadha la yiraahdo Ekraan Tahliil Faarax dhibaatooyin badan ayadu ka mid tahay saraakiil ka horeeyay oo ka tirsaneed hay'adda nabad sugidda Soomaaliyeed oo ayagana sida aan maqalnay sida ayada loo maaragtay muxuu ahay loo waayay dibadna la arkay qaar meydadkooda iyo qaar wali la aragba waxa kale oo rabaa inaan ka hadlo ayadana ra'iisul wasaare tallaabadii uu qaaday oo soo dhaweynta ayaduna mudan runtii arin loo baahan yahay hadda ka hor in maaragtay ay dhacdana aheeday laakiin hadda lafteeda fursad wali haysata arimahaas aan rabaa inaan maaragtay midba mar wax ka iraahdo marka waxaan ku horay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ummadda Soomaaliyeed waa maaragtay waa u hamaliyayna tallaabo muhiim ah qaaday oo looga baahnay runtii dalkuna maanta iyo xilliga lagu jiro ay aad muhiim u ah maxaa yeelay dalkaanu hadda maanta xilliga la joogo caqabado badan uu leeyahay caqabadahaas hal meel ay ka socdaan waxay ka socdaan madaxweynaha iyo tiimka la shaqeeya madaxweynihii hore oo xilkiisu dhamaaday iyo tiimka la shaqeeyo uu kamid yahay taliyaha nabad sugidda iyo ku xigeenkiisa ma taqaana kulanajiis iyo kan kale oo asaguna gobolka jooga nabad sugidda gobolka jooga oo malay in la yiraahdo muxuu ahay hebel Faray iyo waxa soo dhan markii la isku daro caqabad ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimadeeda iyo horumarkii higsanaysa iyo doorashada hadda laga dhursugayo dadku ay maanta u han weeyeen in dawladii xilligeeda dhamaad dawlad kale bedesho la helo waxa soo dhan caqabaday ku ahaayeen caqabadaas marka meel ka mid ah inuu wax ka qabto runtii waa u hambalyeeyayna waana soo dhaweeyayna waana tallaabo hore loo qaaday laakiin waxaan rabaa inaan ra'iisul wasaaraha xasuusiyo wali culayskii halkiisi runtii taliyaha nabad sugidda ninka isku sheegaahay waa masiibo farmaajo dalka iyo doorashada iyo dawladnimada wuxuu ku yahay masiibo labadaas intay meesha joogaan runtii waxaan isleenahay dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada ay ku naaloonayaan labaduba rajo badan ma lahan maxaa yeelay waxay ka shaqeynayaan hadda waxa ugu daran oo maanta dhagaheenu ay maqlaan waxa weeye bal kuwa ayaga la shaqeynayo xoog u ahay oo kala shaqeynaya amniga maalin walba qofka wax ogba in la dilo oo la qafaalo la afduubo meydkiisa qaarna la helayo meel badan laga soo qaaday sida gabarta leeyahay Muumino Cabdiraxmaan Hayow ninka la yiraahdo Jaajuun muxuu ahaa nin kale oo asagana la ugu sheegay ilaa yado Sharma Arke Ismaaciil marka waxa soo dhan waxa la helay meydadkoodii oo meel la yaabay yaala iyo sida loo afduubo runtii aan la yaabana ilaa haddan iyo kuwa badan wali aan meydkooda la arag oo meel ay jaani cirib dhigana la marka shaqada noocaas u taala waa shaqo aan wadankan laga aqoonin dawladan ka horeeyana wali aan maaragtay aysan soo marin oo wax lala fajaa waa wax ummadda Soomaaliyeed dhigeeda ku cusub in dadka Soomaaliyeed cidii wax garata
masiirka ummadda dadkii lagu aaminay mustaqbalka soo korayay ama saraakiisha ha ahaadaano ama siyaasiyiinta ha ahaadaano ama ha ahaadaan aqoon-yahanka ama ha ahaadaan qof kasta waddanka saameyn ku leh oo maaragtay horumarka bulshada qayb ka noqon karta in la dilo oo kuwa hadda noolna ilaahay dartiis ku nool yihiin iyo qudrad rabbi ku nool yihiin kuwa kale tan la daba taagan yahay ay saas u shaqeeyaan waa wax la yaabo waay madaxdii dalka u haysay majaraha oo horumarka iyo dawladnimada laga sugaayay ummadda Soomaaliyeed mustaqbalka inay gaarsiiyaan meel wanaagsan looga fadhiyay inay dadkii laayaan ay dilaan qof habeen la afduubo waa wax la yaabo waay waxaan hore loo arag dawladnimada iyo dalkaana ku cusub oo ay u suneeyeen waay waxaan ku mala jirnay hay'adaha argagixisada waxaas inay sameeyaan marka waxaad moodaa yani inay ka shaqeynayaan ku wadanka laga qabanayo nabadiidka loo baxsho dhibaatada wadi waxay sameeyaan wax ka daran ka shaqeynayaan marka arintaas waa arin ummadda Soomaaliyeed uga tacasiyayna waxaan si qaas ah rabaa inaan isdul taago gabadha leedahay Igraan Tahliil Faarax waa ka xunnahay عائلتي waa u tacsiiheena annagana guud ahaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiina qof oo maaragtay dhalinyaro ah oo wadanka runtii meelaha halbowlayaasha ka shaqeynaysa hadda gobolka Banaadir joogtay iyo nabad sugidda hadda lafteeda maaragtay la shaqeynaysay madaxda nabad sugidda la shaqeynaysay iyo kuwa ku horeeyay lafteeda la shaqeynaysay qof firfircoon ay ahayd qof waxay ahayd dalka dhalinyarada u soo koreeyo aqoon-yahanada kamida mustaqbalka dadka maaragtay la rabay inay wadankan meel gaarsiiyaan ayay kamid tahay marka sida arxan darada ah oo lala yaabo oo gabadhaas loo dhibaateeyay loo afduubay ilaa hadan aan jaani cirga meel inta la aqoonin waa uga tacsiiheena waalidiinteedii oo hooyadeedii aabaheedu uga tacsiiheynay iyo inta maaragtay muxuu ahay caa'ilada oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed meel joogta maxay la wax lala yaabo marka waxaan leenahay xanuunka waa idin la qaybsanaynaa walaalayaal waa ka xunnahay kuma faraxsanin si kasto gabadhaas maaragtay xuquuqdeedii ama cadaaladda kuwa ka dambeeyay dhibtaas geystay cadaaladda loo horkeenahay waa idin kala shaqeynaynaa waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogan baa arrinta in ku baraarugaan la rabaa gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed meel ay joogaanba arrintaas arrin sugay waay kuwa hadda ay qabsatana waa aragnaa kuwaas waa lagu soo wadaa hadaan la iska qaban nimanka waa niman Soomaaliyeed la dirira waa niman dawlad la dirira waa niman horumar la dirira ma aha niman la dhowran kana runtii nimanka dadka u shaqeynay marka waxaan rabnaa ayagana inagu tacsiiyo dadkii maaragtay dhibtaasi ay la soo gudboonaatay kuwa hadda mushkiladda ka shaqeynayana waxaan leenahay waxaad ogaatiin mustaqbalkiina bal meesha ay ku dambeyn doonto aan u fiirsano ummadda Soomaaliyeed intaasna maanta aan meel joogto u sheegaya bal nimankaas meesha ku dambeeyaan aan wada eegno maalin walba ninka jariimada ka shaqeynaya iyo dadka afduubkiisa iyo dhibaatayntiisa iyo iska horkeenka oo doorashada caqabada ku ah oo ilaa hadda ay raboray taagan oo raba dadka inay celiyaan qofkan ayaga aysan rabin oo fikirka ayaga ay leeyihiin aan waafaqsanayn inay dhahaan degaan doorashadiisa ma aadi karo oo xamaran ku celinayna waa arrin lala yaabo waay dadku dalka doorasho u kow maahan dawlad isbedesha u kow maahan qof loo diido degaan doorashadiisa oo sidaas xornimadeedii looga qaadana waxaan wali aragnay ma aha marka fikirka siyaasi dad ka shaqeynaya waxay u baahan yihiin ciribtir dadka Soomaaliyeed intaysan ayagu dhameyn oo aysan ciribtirin waxgaradkiisa waxa la rabaa in dadku ay meel ugu soo jeestaan waxaan ku taageeraynaa caa'ilada maaragtay muxuu Igraan Tahliil in maaragtay ay shirarka gaargaarka inta iska daayaan ay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaan in loo mudaharaado gabadhaas aniguna afkayga waxaan ku leeyahay gabadhaas si loo badbaadiyo ayadana hadday nooshahay loo soo badbaadiyo kuwa dambe wadadaas inay ku soo joogaan la yaabo ay nimankan ku soo fool yihiin looga badbaadiyo si wada jira ha looga hadla arintaas dadku ha soo baxo waa wax la yaab leh gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed aqoon-yahanada oo ka shaqeeya hay'adaha dawliga ama wasaaradda ha joogaano ama ha joogaana hay'ad abni in qofba maalin la yiraahdo xog og yahay waxaan sameeyayno halista anaga nagu og yahay la afduubay la dilo waa wax la yaabo waay hadda arinta laga hortigina dadka way marinayaan nimankaas marka waxaan leenahay si wada jir ah looga hortago dadku afka ha furto
inay xoroobaan nimankaas ka xoroobaan Soomaaliyeey aan ka wada shaqeyno haddaan laga xoroobin nimankaas Soomaalinimaduna waa dhimanaysaa oo way naga dhimanaysaa dalku iyo dadku waa silsilo isku xiran waay wixii ka dhaca muxuu ahay waqooyiga Soomaaliya waxay saameyn ku yeelan karaan koonfurta Soomaaliya waxay bariga ka dhaca waxay saameyn ku yeelan karaan qoraxsinka marka dalku waa isku xiran yahay dadku waa isku xiran yahay dawladnimadu ayada dalka ku filan waxay diidan yihiin waa dawladnimada mujada waxay diidan yihiin waa dadka dawladnimada gaarsiilahay dadka waa ummadii soo koraysay xogta ogeedo wax qabadka ehelka u ahaaday rabaan inay dadka ka mariyaan waxay rabaan dadka inay indhaha ka ridaan waxay rabaan dadka dhagaha inay ka gooyaan waxay rabaan dadka in aqliga tiraan marka arintaasi waa arin u baahan dadaal wadareed ma arin fardi iyo qoys gaar iyo koox iyo qusaysa ma Soomaaliya oo dhan inay ka dhiidhisa waa dawladda dadka u shaqeeyaan qabiil ma aha waad ogtihiin Soomaaliya dadka dawladda jooga hay'adaha dawladda ka shaqeeyaa qabiil ma aha waa Soomaali gobol kasta ka yimideen deegaan kasta ka yimideen waa dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo dawladnimo inay ka shaqeeyaan meesha u jooga marka dadkaas hadii indhaha laga baxsho maalinba qofku wax ogma leeyahay kan aan birayno si maaragtay halista aan dalka ku soo wadno aanu u gudbin hadda waxaan maqlay gabadha la yiraahdo Muumina Cabdiraxmaan hayo waxay u dhimatay waxay ahaan sir ay u gudbisay nin murashaxiinta midowga murashaxiinta kamida oo in la dilo la rabay oo lagu heshiiyay dilkiisa laakiin wali aan la fulin ninkaasay xogta u gudbisaa la yiri saasay u dhimatay marka dadka saas u fikira oo umada dhamo dil ugu qoran yahay waxay ka fikirdoon waxay ugu qoran yihiin dil fikirkaas marka waa naqaan meeshu ka yimid haddii meesha lagala dirir lahay ayadii oo yaalo ayada dalkii ayada laga xukumaba hadii bay xukumaan de marka wax la dhowrtaa meesha ma yaalin wajada hadii ba fikirkaas ninkii qabay wax asiga ka firdo qofka uu dil ugu qoran yahay ay dalka xukuumad madaxtooyada ku jiraan oo ay ku jiraan hay'adda nabad sugidda ayagu ay maamulayaan ay u taliyaan marka dawladnimadii marka soo wax la yaama soo adduunka ka geerimayno baalmadow soo nolo aqoon Soomaaliya wada dhamo argagixisa arintaas waxay u baahan tahay arin waxa weeye dadaal wadareed u baahan tahay aragti meel ka soo wada jeeday u baahan tahay waxa kale oo la yaab leh oo wax la yaabo umada Soomaaliyeed rabaa inaan xasuusiyo ninka sidaas u fikira oo xukunkiisa oo maaragtay ku taagan yahay qofka ka fikir duwan in la dilo qoodin iyo xiradiin haddana nooga rabo baarlamaanka soo socda cod ka rabo haddana inuu ku soo laabto dilka sii wado taas ayadan waxay tahay la yaab dadka marka dad indhala oo dhagala oo aqli la oo fikiray inaan nahay Soomaali ay saas markaas ay wada gaartay waxa la yaabo waa marka ninkaasi dalka dhibaatada uu geystay wax u maleeyay inay 10 sano iyo 15 sano iyo 20 sano in la xalin doono u maleeyay waxyaaba uu ka tagay sunta uu ninkaas ka tagay saameyn badan ee dalka ku yeelay iyo dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay intaan uu nagu faafin hadeerna laga hortago oo si farsamaysan looga hortago oo dadka Soomaaliyeed shuxuurtooda ha muujiyeen fartaha lagu fiiqo dhibaatadaas haddaan farta lagu fiiqin way nagu socon qola gaar ku gaar maahan qofka ayagu ay rabaan oo fikirkooda diidana wax uu qorayaan sida hadda ma uu qorayaan dil afduuba uu qorayaan ciidan waa haystaan qoryo waa haystaan dadkana waa ka adag yihiin mid ugu adag yihiin waxa kale lagu celi kara waxa waaye in dadaal wadareed waa marka aanu arintaas Soomaali u soo jeedina farmaajo iyo tiimka asaga la shaqeeyo oo ay kameen hay'adda nabad sugidda iyo madaxdeeda dadka Soomaaliyeed intaysan dhamayn oo aysan indhaha ka ridin oo aysan balaag liiskina wada gelin umada Soomaaliyeed hadda kuma jirto balaag liisk si ay inay wada geliyaan ay rabaan haddaysan meeshaas intaysan gaarsiin ayagaan iska qaban